cabdixakiin colaad oo ah wiil dhalinyaro oo Soomaaliya oo degan wadanka Denmark ayaa waxa uu dhigay rikoodh cusub oo ah dhinaca maraatoonka wadankaasi waa orodka maraatoonka loo yaqaan waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Sharaf oo warkaasi inoo haya wiilkan waxa ugu hadalhayn badan wadanka Denmark wiil la yiraahdo cabdixakiin colaad oo ah wiil Soomaaliyeed kaasoo orda maraatoonka kana qayb galay sanadkan maratoonkii lagu qabtay wadanka Denmark magaalada Copenhagen ayaa wuxuu noqday wiilkii ugu horeeyay abadiyan ama Soomaali ama Danish baade dhiga rikoodhkii ugu sareeyay taasna ay soo jiidatay ummadii daawanaysa dhammaan loo sacabinayay ilaa intuu ka soo gaadhay goobta ay ku dhamaanay orodku taasina waxa ay ku soo beegmaysaa xilli Soomaalida wadanka degani ay tusaale loogu soo qaato qaxoontiga nimanka ku soo badanaya wadamada Europeanka ama Scandinavianka taasoo tusaale loogu soo qaato Soomaalidu inay yihiin dadka ugu liita xagga integrationka ama isdhexgalka taasina waxay ummadii u furtay indho kale oo soo jiita inuu noqday wiilkii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee gaadhay rikoodhka aan hore loo jabin dadka marka haddii aad eegto magaalooyinka ama xagga internetka waxa lagu hadlayaa cabdixakiin colaad taasoo loo hambalyeynaya aadna ugu faraxsan yihiin dadka Deenishku aad moodana maartay inuu noqdo xidig u soo baxday ummadii Soomaaliyeed ee ay ku habsatay in mar walba ay noqoto dadka tusaalaha lagu soo qaato wixii xumaa aan wanaagba lagu sheegayn taasina waxay noqotay mid ay dadkii aad ugu farxeen aadna u soo dhaweynayaan marka waxay noqotay qisooyinka ugu fiican ee marmarba marka kasii dambeeya kusoo badanaya qurbayaasha aynu deganahay waa Maxamed Sharaf TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Copenhagen